walbana ugu yaraan 10 aan naga gasho waxba loogama qabto isbitaalka ay naga galan hooyadan iyo aabaheen ayaana daaweysto kii naga dhintana Allah u naxariisto ayaa la yiraahdaa marka waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo mar labaad ku celina oo mar saddexaad ku celina waxaan nagu batay dil oo aan loo aabayeelin oo bajaajlay maalba wallahi si shucuur anigoo magacayga Cabdiraxmaan Ibraahim Yuusuf oo ku nool magaalada Muqdisho waxaan ka shaqeystaa bajaajka magaalada meel ugu shaqeysnaa laanahay inaa go'aan gaarna naga soo dhow oo furiyaash aan wareejino adigoo qof $1 ku soo qaaday waxa lagu leeyahay kala wareeg qofkii $1 kama helaysid wuxuu ku leeyahay meesha raw mi geenin qofkii bajaajka la wuxuu ka rabaa $10 adiga nolol u baahan tahay meel ku shaqeysnaa laanahay magaalada Muqdisho meel ka aadna laanahay wax allaala wax maanta aniga go'aan aan gaarna laanahay waxaan dawladda ka codsanaynaa si nidaam ugu codsanaynaa dilkeena baneysteen in iska dhaafaan anaga wax xuquuq aan leenahay dalka u dhalanay dilkeena maalin ilaaha keen waana dilaa waxana noo dilana ma naqaano kala wareeg ma kala wareeg liifa ku agya liif anaga marka waxa wadanka u dhalanay xaq aan leenahay hadaa xuquuq leenahay oo nahay dad xuquuq leh dibkan naga dhaafo intaas qaba aniga halkaas ugu baxa waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya hadana aanay mootaalay dhibaato aad iyo aad ku qabnaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan dawladda hoose munishibiya bajaajlida dhibaato aad iyo aad ku qabtaa maalintan dil loo goostaa dilkii saddexaad hadda la waa ex control lagu dilay kala wareega dawladdu waxaan ka codsanaynaa in xaqeena noo soo celiso xuquuqdeena maalintan waa dhibnaa cashuurta jidadku way xiriyiin 3 bilood la sheego in wadada xiran tahay mana dul qaadan doono anigu biila naga rabaa qaar ijaar ku wadaan qaar duruufaas kaasto magaaladii kala wareeg waa $1 lagu qaado waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya inay ninka wax dilay oo maanta oo dilka geystay inay gacanta ku soo dhigto saddexda nin taariibna ma rabno in wadankeena ku sii noolaanaan jecelnahay ma rabno biriga baadina wadan islaamid aan tagno oo dhibaato nagu soo gaarto waxaan ka codsanaynaa in injineer yariiso dawladda siiba qaybta munishibiya in ay meel laga saaro oo hadda waxaan ka codsanaynaa 3 bilood oo wadada xiran tahay in naga joojiyaan cashuurta intii oo wadooyinka laga furaayo wasalaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdiraxmaan Abdullaahi Xasan waxaan ku noolahay caasimadda Soomaaliya Muqdisho dawladda Soomaaliya waxaan u sheegayaa dhibaatooyinka ay u geysanaysa mootolada bajaajka oo dilka joogdida maalin walba oo leeyahay kala wareeg oo waxyaabaha qaar ciidamada booliska kuwa milishiibida kuwa nabadgelyada waxaana military dhibaatooyin farbadan loo geysay maalin walba milishiibida u doonaya kuwa booliska oo jaboontaysa joogan anaga dhibaatadaas maalin walba ma aqbali karaan madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku astanay mudan Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Muuse Cabdiraxmaan iyo wasaaraha Soomaaliya Xasan Ali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yuusuf waxaan ka astanay dhibaatooyinka oo loo geysay maalin walba inay ka hadlaan haddii ka hadli weeyaan dhibaatadii ka dhacday iyada mas'uuliyadda iyada qaadi doonta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وعن رمنا دولة واجل الدورنا فرماج حلقي الدورنا لقتي نمبر أفر قبل الله نحكي تجنا عالش ما قرت بجادية دورتي وضن كان بجادية النبات كسر هو كرت بجادية نعول كي كرتها ما فهمتي أنا مثلا هذا ودك بلانك جو وحال الله مقالة تسوقلا سايسوقلان أنا جي مقالة جونا بركة عن الوحياة ما هو البجادية الدلوية أنا مقالة بحل وقت لقى شقي سنة ملها أفر إلى بعض جديد كي وحرنين من الشين بيد جديد كي تاجن تاي كي بولس باورك عبد الله صوت دولة كجرا وحصل نور معها دولة وحرمنا نور ونكسنا كرمنا وطن كذا يعيد الرود دورتي شلون ولا هرمان دارتين ولا بري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحنا هني بجاجلي أنا وحنا هنا بجاجلي وحنا كشقة سنة بجاجك قبردين وحواي بجاجكنا كشقة سنة maalin walba in qafla dilan xaq ma noqonayso dhalinta Soomaaliyeed waa dhalintii oo dalkan wax u qabaleed bari ka maalin marka maalin walba hadii askarina dilo waa dhamaanina marka dawladdu waxa ka codsanayna askarta iska fakanayso intay dadka disho inay la hadasho anaka cashuurta waa bixinaa maalin walba bixinaa cashuurta bil walba waa bixinaa marka siin bari baan anaka cashuur bixinayno hadeen nala dilo wadooyinka naga la xiro muu adkeysan karno waa in wadooyinka nolol furaa oo shacabka laga qaada dhibka iyo dhibaatada haysato waa in dalka waxay ugu dhaarteen inay dhibaatada ka qaadaan dhibaatada waxay ugu qaadi karaan waxa waaye inay dhalintooda ay u naxaan shacabkoodana ay u damqadaan marka shacabkiina hadaa u damqanina xilka u dhaarateen maalintii yom la aqraan ilaahay
marka anakan beebeenaha nugu dilnina dhalinyaro Soomaaliyeed baan ahnay ninka qori wato waa dhalinyaro anakan dhalinyaro baan ahnay marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada aan qoranaysin waa inay ahaadaan dhalinyaro dalkooda u difaaci karo waa inuu yahay nin gurigiisa la kasaayo waa inuu yahay nin familkiisa la kasaayo ma aha nin aad soo qabateen oo keenoo qori ma qaadi kartaa dhahdeen waa inaad tihiin nin aad gurigiisa ka siisiin oo familkiisa ka siisiin oo jaamacad meesha uga soo baxay ka siisiin haddii kale is ahaan waafakanaya inuu dilaya intee ka soo qabanaya wuxuu aadaya gobolka ka imaaday ma qaban kartiin markaas waxaan ii sheegayaa dawladda Soomaaliya inaan noo aartiin ninkeena aan noo soo qabatiin oo ninkaas oo xaqeena noola mariyo haddaan ahla bajaajilay maalin kasta waa dishiin dadkeena taasna ma niga dul qaadanayno waa inaan ninkaas xaqiisa aad noo soo daashiin ama asantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا dhalinyarada ka shaqeysta gobolka Banaadir dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa waxyaabaha baalkale anagu mootaaleeyanahay marka mooto bilaabaynay waxa la leesin soo goostanay waa soo goosanay canshuur goosta la yiri waa goosanay wadooyinkii dhanana la ka xirtay waa u samirnay waxa la yiri amnigan sugaynaa wadooyinkii dhanana la ka xirtay waa u samirnay anagiyo intaasna la ka rabo oo mootooyinkii wadana ilaa saaka hadda aan shaqaynayo $6 lacag aan shaqeeyay mooto $10 laga rabana aan wataa wadooyinka dhan waana la ka xirtay meel aan marna ma haysano intaas ay tahay oon dul qaadanaynay waxaana la kugu daray qofka bini'aadamka waxa ugu qaalisan waa nafsadiisa in qof bini'aadana oo hubaysnayn oo hub wadan $15 lacag loo dilo asoo ninkaas laga qaadi karo furiisa laga qaadi karo xagga farisal dhigi karo marka la sameey karo $15 lacag qof bini'aadana loo dilaa waxaas macna baalka leeyahay bini'aadanimo maahan waxaan ka codsanaynaa in qofkaas baalka leeyahay wadooyinka la xirtay dawladda waxay go'aamisay 3 bilood inay wadada u xirnaanayso ha u xirnaato annaga wixii xiran shaqo ku malin wixii xirnaado ha xirnaadaan laakiin ma dhiibi karno canshuur $15 bishii meelaan ku shaqeysana ma haysan annaga intay wadooyinka dawladdu u xiran tahay waxaan ka codsanaynaa canshuur ma dhiibeyno mana hayno taas ka gudub waxaan noo dheer annaga maalin walba jagboontiga la soo istaagay waxa lagu dilaa oo dhinto nin hoomay ma dhinto waxa la dilaa maalin walba mootooley mootooley ayaa la dilaa mootooley haddaan nahanay waa macaane maalintaan soo gala mootada ilaa hadda dhimashada waxay ka badan tahay 100 qof oo mootooley ah intaasna waxa sabab u ah dawladda waxaan ka codsanaynaa dilkana ilaahay baa wax dilay dilkana naga yareyso mideeda kale waxa jira jagboontiyaasha meelaha qaar minishiibida noo wuxuu minishiibidana hanaga daysa dilka ilaaluuska aniga oo ah ka hadlaayo Cabdifataax Mahad Axmed gudoomiye ku xigeenka bajaadleyda bismillaahir rahmaanir rahiim aan runtii horta waxaan u tacsiyeynaa dhammaan bajaajley oo aan anigu kamid ahay midda labaad waxaan cabashadayda maanta u gudbinaa dhammaan inta wax ka qaban karto oo ugu horeey madaxweynaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir qaasatan waxaan si toos ah ula hadlaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waayo asaga ayaa wuxuu saxaafadda horteeda ka yiri wadooyinka 3 bilood iyo ka badan horena waa loo soo xiray laakiin 3 bilood ayuu hadda taanba la qaaday annagu waxaan wadada ku marnaa $15 oo canshuur ah canshuurteeni waxbaan ma loogu qabto kuma helna caafimaad kuma helna waxbarasho kuma helna amni darada horta waa umada kale la qabnaa laakiin annaga mid qaas oo noo sii dheeraya waxay tahay in maalin walba wiil bajaajla ah naga dhinto asagoo u dhimanayo gardarro cad oo waliba ay dilayaan rag u shaqeeyo oo ciidan u ah gobolka Banaadir maanta ayaa ugu dambeysay waxaan leeyahay oo cod buuxa codka anigoo ku hadlaya codka bajaajleyda ku soo gudbina waxaan ka badannahay in ka badan 24,000 oo dhalinyaro ah 24,000 ayaan nahay iyo ka sii badan inteenuba waxaan dad iskood u shaqeysto annagu waxba ma weydiisano dawladda cabasho uma gudbisano ma dhaahno caafimaadaan u baahannahay ma dhaahno waxbarashaan idinka rabnaa qarax walbana ugu yaraan 10 aan naga gasho waxba naloogama qabto isbitaalka ay naga galan hooyadan iyo aabaheen ayaana daaweysto kii naga dhintay Allah u naxariisto ayaa la yiraahdaa marka waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo mar labaad ku celina oo mar saddexaad ku celina waxaan nagu batay dil oo aan loo aabayeelin oo bajaajley maalba wallahi si shucuur ayaan u hadlaa gudoomiye hadaa taanin lillaahiya oo Allah ka cabsanayo oo islaamkan gudoomiyaha gobolka Banaadir u ah ilaahaga ka cabso ummadana wax u qabo hadaadan wax u qabanin min fadlaka hor wareeg wadooyinkan xiranna inta ay naga xiran yihiin waxba hana weydiin canshuur ah hadii kale wadooyinka noofura xornimo aan lahaan hana la baaro annagu ma qaraxno
annagu ma nihin dad dhibaato waddanka ka wada shacabka shaqada aad u haysaan oo adinku uga gimateen ma qabataan annaga bidda aan qabanno annagu waxaan qaadnaa hooyo uurle waxaan qaadnaa arday wax baranayo waxaan qaadnaa macallin waxaan qaadnaa waayeel waxaan qaadnaa mas-uuliyiin dawladda ka tirsan waxaan qaadnaa shacab nooc walbaan qaadnaa haddaanan middaas aan tixgelin ku helin oo haddana dil iyo maxaa la yidhaahdaa annaguna nalaga sii qaadayo lacagay ma u dulqaadan doonno waddada askartu sidoodaba qoragoodii ku raacaan baabuurka marka intaas ayaan ku soo koobayaa waana la iiga dambayn doonaa dhallinyaro kale ayaa dhiman wabilaahi tawfiiq